أنا كهلا مجا جودة جالية إفسن وحامانت شر سنداتكي القمن اللي فقادر إن الوقف مجال أمستردام شركة سواء سنة كاستمر إن جالية دهور لكتو ururada ka tirsan Efsan ay mataqana miisaaniyadii 2022 iyo waxqabadkii jaaliyada looga warramo maanta si wanaagsan ayaan inoogu dhacday waxaana warbixin badan laga dhageystay guddiga jaaliyada waxa kale oo maanta lagu ansixiyay laba urur oo cusub oo ka mid noqonaya Efsan waxa kaloo la sharciyeeyay ama maanta ay guddiga ururada kalidka ah jaaliyada Efsan dalada Efsan iyagana maanta ay ansixiyeen saddex guddi oo cusub oo ka mid noqon doona ururka guddigooda maadaama shaqadii ay aad u badatay saadaradeed waxa loo baahday xubno kale oo shaqooyinka socda kala qayb qaata marka maanta arintaas ayaan halkan Amsterdam u nimid si wanaagsan oo qaali ahna way nagu dhamaatay waxaan rajaynaynaa waxqabadka ururka inuu si level ijbaaro maanta waxaan qaadanay halkaan ku dhacay shirkii ahaa oo la dhihi jiray xubnaha Efsan ay ku kulmi jireen sanad kasta lagu qabanayay shirkaas oo ka dhacay magaalada Amsterdam oo looga hadlay qorshe sanadeedkii soo dhaafnay iyo xisaab xirkii iyo guddiga maamulka cusub loo soo doortay oo lagu qabtay magaalada Den Haag si guul ay ku dhamaatay. Vandaag zijn we bij elkaar gekomen voor de algemene ledenvergadering van dit jaar. We zijn blij om te zien dat landelijk de verschillende leden van Efsan bij elkaar zijn gekomen, maar ook met toevoeging van 2 nieuwe leden die ook in 2 verschillende regio's actief zullen zijn. En daarnaast is er natuurlijk ook onze bestuur uitgebreid naar 7 nieuwe leden met toevoeging van 3 nieuwe bestuursleden. Dus we zijn heel dankbaar dat de input hebben kunnen meekrijgen vanuit onze leden, maar ook met de nieuwe visie dat de bestuur wilt gaan bereiken met Efsan, die natuurlijk ten alle tijden het belangrijkste instrument blijft voor de Somalische gemeenschap in Nederland. maanta waxaan halkaan isugu nimi shirki oo sanadlaha ahaa dalada Efsan marka alxamdulillah si fiican ayuu noogu soo gabagaboobay waxa badan baa laga dooday waxa kamid ahaa in mataqaan sidii guddida loo balaarin lahaa iyo howlihii kale oo socday oo ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha meesha marayaan iyo waxqabadka ururku sameeyay bay guddiga noo soo bandhigeen marka ma sha Allah shirka si fiican noogu soo gabagaboobay wallahi waxa iga soo baxay runtii horta ururada in macnaha muxuu ahaayay horumar weyn aad loo gaaray gaar ahaan waxaan muxuu ahaa aniga ka hadlay sida hufnaanta iyo sida macnaha isla xisaabtanka meesha ka dhacay ay ururada macnaha muxuu ahaayay si waadaxsan ay runtii uga hadleen oo wixii jirana macnaha loo sheego oo waxba la kala qarsanin dhibaatooyinka jira ama challengeska iyo sidii arrimahan macnaha looga macnaha marka dambe muxuu ahaayay loo soo afjari lahaay iyo balamo badan oo macnaha la sameeyay iyo balamadaas marka dambe oo la soo noqdo in lagu xisaabtami doono siday macnaha u fuleen runtii wuxuu ahaa shir runtii oo aad u wanaagsan oo aad loo soo agaasimay aniga ahaan waxaan deganahay magaalada Roermond oo waxaan halkaas madax uga ahay urur la yiraahdo ururka Stichting Iftiin maanta shirkan waxa uga soo qayb galay shirkan wuxuu ku saabsan yahay mar sanad la waaye markasto oo hal sano oo dhamaado 56 urur oo ururkan ka tirsan Efsan ku mid ah ayaa ka soo qayb gala waxa ayna ka wada hadlaan wixii hore ugu soo qabsoomay iyo waxa hadda ka bacdi mustaqbalka laga leeyahay horumarinta iyo xagee Efsan ku socota runtii walaal meeshan maanta kulan ka dhacay kulan aad iyo aad u qiimo badan maxaa la yiraahdaa ayuu ahaa loona baahan yahay maxaa la yiraahdaa ururada Soomaaliyeed ee ka tirsan ururka Efsan in ay maaragtay ay kulmaan dhowrkii sano mar sanadkan hadda shirkan waxa ahaa kii oo maxaa la yiraahdaa joogtada ah sanad kasta aan kulmi jirnay waxaan ansixinaynay maxaa la yiraahdaa sanadkii hore oo la soo dhaafay 2022kii maaragtay waxyaalihii la qabtay inaan ansixino ay ahayd iyo guddi cusub oo dad cusub oo guddi lagu soo daray in ayagana maaragtay aan ansixino oo maxaa la yiraahdaa maadaama guddigeena hore uu ka koobnaa 5 qof dadka qaar ka mid ah ay baxeen guddiga ayaa hadda jira ay wax naga codsadeen in maaragtay dad cusub lagu soo daro
maadaama shaqooyinka ay ku bateen waxyaalaha aan ka doodnay ugu badanna waxa ay taas ay ahayd in la badiyo inaan la badin maadaama sanadkii hore aan bedelnay hawshaas oo aan 7 aan soo aadnay hadda misna inaan meesha ku noqono ayaan ka doodnay si wanaagsan ay u dhacday maxaa la yiraahdaa oo dadku ay ka doodeen waana markii ugu dambeysay alxamdulillah waan isku afgarnay waxaana dhigaya maaragtay sharciyada wadankan ka jira ayaa waxay yihiin inay wax walba transparent ahaadaan oo maaragtay transparent looga doodo waxyaalaha noocaas oo kale ah waana la isku afgartay alxamdulillah rabbil caalamiin guddigu waxay soo jeediyeen ayaana markii ugu dambeysay ayaa maaragtay loo ansixiyay marka sidaa ayay u dhacday kulanka maanta wuxuu aniga aan u arkaa kulan aad u fiican sanadkii wuxuu ahay Efsan oo sanadlaha ahay wuxuuna u dhacay sida aan rabnay baahiyaha loogu waaweynaan waxay ahaayeen guddiga oo u baahday macnaha guddi dheeraad ah iyo inay la arkaan macnaha leydinka inay la arkaan baahidaas run ahaantii aad ay noogu sharxeen haddii aan fiirin ka bacdina waxaan go'aansanay inaan ansixino Efsan waa dastuurda cusub hal sano bar waxaan noocaas u jiraa guddiga horena oo soo gaarsiiyeen oo cala hore hogaaminaya mahadaan u diraa asagana waan mahad celinaya guddiga cusubna waxaa leeyahay macnaha guul iyo gobonimo waxaan inka sugaynaa insha Allah biidillah kariim sanadkan sanadkiisa horumar iyo bashbash iyo barwaaqo run ahaantii horta marka u horeysa kulanku wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan waxaana ka soo baxay wax aad iyo aad u wanaagsan kulankan oo kaleeto wuxuu ku wanaagsan yahay maalmaha one day together English ku yiraahdaa macnaha kulan maalmeed bal wixii la soo qabtay iyo sidii wax yihiin iyo xaaladda in la suuraysto ayuu ahay waana wax loo bogay waxaana codsanayaa in la joogteeyo uu sidaan hawsha u socoto kaalinta ururka Himilo uu ka qaatay kulanka maanta kaalin sidee lagu kulaha kulanka run ahaantii ururka Himilo waa urur active ah oo ka howlgala gudaha waddanka Netherland iyo waddankii Soomaaliya run ahaantii howlo badan iyo mashaariic badan la wada yani lafdhabarna wuxuu u yahay ururka Efsan oo sida u socoto saad ogtahayba ayaan dhaweyto waxaa tartantay 346 urur tartantay markay tartameen oo Netherland ururka Himilo wuxuu noqday kaalintii 6aad ayuu 6 urur soo kama dambeystuu soo baxay 6 urur la isku celiyay kaalintii 2aad soo baxnay halka waxaad garanaysaa awoodda ururka Himilo uu ku leeyahay waddanka Netherland iyo dadka ka shaqeeya inay yihiin dad aad iyo aad u tayo sareeya sida daraadeed ayayna Efsan u yahay lafdhabar had iyo jeerna contribution ayaan siinaa iyo talooyin wax ku oola